Ma taqaanaa xiriirka ka dhexeeya soo jiidashada iyo dhaqamadaada? Qof fiican ayaa ku aadaya qof xun, sababtana ma yaqaano. Jacaylku marna qofka daciifka ma dhigo. Haddii qiimaha naftaada iyo waxa kuu qalma aad garan weyso, waxa kugu ciyaari doona si dulinimo ahna kula dhaqmi doono qof qiimaha naftiisa gartay iyo waxa uu u qalmo. Markaasuu optionka ugu dambeeya kaa dhigan doonaa. Haddii aad xiriir ku jirto, si wacan isaga fiiri xiriirka aad ku jirtid. Ma waxaa tahay optionka ugu dambeeya qofkaasi uu haysto, mise waxaa tahay qof aan option la gelin karin? Ma waxaa tahay qof qiimihiisa gartay, dareenkiisana ka awood badinin, caqligiisa isticmaala? Jacaylku marmarka qaar dadku waxa uu ka dhigaa dulli, marmarka qaar dabaal ayuu ka dhigaa, marmarka qaarna dadku waxa uu u jilciyaa kuwa aanan naxariis iyo danqasho lahayn, markaasay kugu kortutumanayaan. Waa jeclaan karta waxba kuma diidani, laakiin jacaylow qof qiimahaaga garanaya. Qof garanaya waxaa tahay qof aanan qofna kula barbardhigaynin. Waxaasi oo dhan waxay ka timaadaa markaad adiga isqadarisid, adiga isqiimaysid, naftaada aad jeclaatid, raali aad ka noqotid sida aad u eg tahay, kadibna aad ku fahamtid. Markaasaad soo jiidanaysaa qof sidaa kugu jecel, markaasaad soo jiidanaysaa qof sidaasi kugu raba, sidaasi kugu danaynaya. Ma taqaanaa xiriirka ka dhexeeya soo jiidashada iyo dhaqamadaada? Haddii dhaqamo liita naftaada kula dhaqanto, waxaad soo jiidanaysaa qof liita. Haddii dhaqamo sareeya oo awood badan naftaada kula dhaqanto, waxaad soo jiidanaysaa qof sareeya. Sida aad naftaada ula dhaqantid, sida naftaada u qadarisid, sida naftaada u jeceshahay, waxay soo jiidanaysaa qof sidaas la mid ah naftiisa u jecel, qof sidaas la mid ah naftiisa u qadarinayo, qof sidaas la mid ah naftiisa u maamuusayo. Waxaad tihiin laba qof oo isku soo baxaya, waad iselaysaan, laakiin maanta dhalinyaradu way kala war la'yihiin. Qof fiican ayaa ku aadaya qof xun, sababtana ma yaqaano. Waxaa jira dhaqamo soo jiitay qofkani xun oo aad adiga samaysid, dhaqamadaas iska bedel. Dhaqamadaas way kuu duleyn karaan qofkani dhaqanka xun ee soo jiidatay, qofkani hooseeya, qofkani liita, qofkani daciifka soo jiidatay. Dhaqamadaada kuu soo jiiday, wax kale kuma soo jiidin. Jacaylku marna qofka daciifka ma dhigo. Jacaylku waxa uu ku siiya awood aad buuraha ku jibin kartid, aad ku xaqiijin kartid riyooyinkaaga. Laakiin jacaylka ha dhigaya daciif, jacayl kuu diida in riyadaada aad rumayso, jacayl waqtiga kaa luminaya, jacayl maanta oo dhan aan wada hadalno ah, kaasi jacayl ma ahan. Qofka ku jecel waqtigu ku ilaaliyaa, qofka ku jecel horumarkaaga uu kaala taliyaa, qofka ku jecel sirtaada ku qarsan kartaa, qofka ku jecel aduu kaa fikiraa, qofka ku jecel kuma xaasido, qofka ku jecel kaama maseero, qofka ku jecel saaxiibkaagu jeclaadaa, qofka ku jecel hooyadaadu jeclaadaa, qofka ku jecel waalidka oo idil jeclaadaa, qofka ku jecel waxa kaa agdhow ayuu jeclaadaa. Ma jirto adaa ku jeclaanaya, dadka kugu hareeraysan waa necbanaanaya. Jacaylkaasi waa danaysi, sidaasaa ku garanaysaa. Haddii saaxiibada ama saaxiibka uu kaa rabo in saaxiibada uu kaa reebo, ama saaxiibka ay kaa reebto, kaasi ma ahan jacayl. Waxbaa ku jira, waa danaysi. Qofkaas isla markaa baabkiisa meesha isaga xir. Naftaada haddii aad qiimaheeda garato, aad qadariso, jeclaato, hubaal jacayl oo dhan waad ku guulaysanaysaa. Waxaadna helaysaa qof kuu qalma.